Pablo Emilio Escobar, sidoo kalena loo yaqaanay Don Pablo, El Patron iyo Robin Hood oo ay ku magacaabeen dadka fuqarada ah ee uu taageeri jiray. Wuxuu bishii December 1949 ku dhashay dalka Colombia, gaar ahaan magaalada Rio Negro. Ninkan aflaamta iyo musalsalada badan laga sameeyay yaraantiisii wuxuu ahaa mid saaxiibadii u sheega in uu noqon doono madaxweynaha Colombia iyo sidoo kale taajir aan sumcad lahayn. Fikradan kolka ay maskaxdiisu ka dhex guuxaysay wuxuu ahaa mid ku nool magaalo aan caalami ahayn, halka waalidkiisu ahaayeen beeraley muruqmaala. Wuxuu ka haray oo uu ka tagay jaamacadda Autónoma Latinoamericana. Durbana wuxuu ku soo baxay mid xada baabuurta sidoo kalena sameeya afduubka, asigoo ugu dambeyn aasaasay shabakad muqaadaraad oo lagu magacaabayay Medellin Cartel. Shabakadan waxay aad ugu xooganeyd dalalka Bolivia, Colombia, Panama, Peru, Mexico, Mareykanka, Canada iyo Yurub, ayadoo xitaa lagu daro mararka qaar qaaradda Aasiya. Pablo waa kan ugu magaca dheer dhanka muqaadaraadka, asigoona loogu yeero The King of Cocaine. 1970 ilaa 1980 wuxuu noqday mid boqolkiiba 80 maamula oo ay hoos tagto guud ahaan waxyaabaha maanka dooriya ee la geyn jiray Mareykanka. Wuxuu ahaa mid iibiya maalintii 15 tan oo cocaine ah, asigoo ka heli jiray toddobaad kasta $420 milyan. Ganacsigan halista ah ayuuna ka helay lacag xad dhaaf ah, iyadoona 70meeyadii lagu qiyaasay lacagta uu haystay $30 bilyan, halka lagu qiyaaso lacagta guud uu helay $100 bilyan. waa xitaa marka lagu daro lacagihii ugu duugnaa meelaha kala duwan ee dalka Colombia. 1989 Pablo wuxuu kaalinta toddobaad ka galay liiska dadka ugu taajirsan caalamka, gaar ahaan warbixin ay soo saartay majalada Forbes. Sanadkii 1976 Escobar wuxuu guursaday Maria Victoria oo 15 jir ahayd, iyadoo u dhashay wiil iyo gabar. Pablo Escobar wiilkiisii Juan Pablo magacii ayuu bedeshay asigoo la baxay Sebastian, wuxuuna bartay culuumta injineerinta dhismaha. Wiilkan uu dhalay Pablo wuxuu 2015 qoray buug uu ugu magac daray My Father, asigoona buugga ku xusay inuu aabihiis ahaa mid dilaa ah oo caalamka daroogeeyay. Balse taas beddelkeeda Pablo wuxuu sumcad ka haystaa dadka faqriga ah ee reer Colombia, asigoo u dhisay iskuulo, isbitaallo, guryo iyo garoomo lagu ciyaaro. Siyaasadda uu kula macaamilayay dowladda Colombia waxay ahayd halees la yiraahdo Plato o Plomo oo ah hantida ama rasaas. Wuxuu gaaray heer uu 20% ilaa 30% uu ku yeesho faa'iidada ay helayeen kooxaha kale ee ganacsigiisa oo kala hayeen si xoog iyo handadaad ah. 1991 wuxuu Pablo isku dhiibay dowladda Colombia halka ay qaban lahayd dowladda Mareykanka. Wuxuuna Pablo dowladda Colombia ka codsaday in xabsi gooniya loo dhiso, asigoo u sheegay haddii xabsiyada caadiga ah lagu xiro in la dili doono. Dowladda waxay u dhistay xabsi gooniya oo lagu magacaabay La Catedral, wuxuuna Pablo howlihiisa ganacsi ka dhex watay xabsigaasi. Ugu dambeynse waxaa ogaatay dowladda, Pablo ayaana baxsaday kadib markii uu garowsaday in loo bedeli rabo xabsi kale. Dowladda Colombia waxay qabashadiisa u aasaastay koox lagu magacaabo Serge Block oo hadafkeedu ahaa oo kaliya inay disho ama soo qabato Pablo Escobar. 15 bilood oo la raadinayay kadib waxaa Pablo Escobar la dilay 2 December 1993, waxayna dadkii u dhawaa Pablo sheegaan inuu asigu isdilay. waxaana aaskiisa soo xaadireen 25,000 oo ruux oo u badnaa dadka faqriga ahaa ee uu ku saaciday hantida uu hooga iyo halaaga ku kasbaday.